بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kusoo dhawaada barnaamijkeeni xiisaha iyo qiimaha badnaa sheekooyinkii adeer cajab xalaqadan waxaynu kaga hadli doonaa waa xalaqadii shanaad waxaynu kaga hadli doonaa akhlaaq ka mida akhlaaqda islaamka waayo maxaynu nidhi diinteenna waa diinu akhlaaq nebiga sal alla alay wasalam muxuu yidhi waxaa lai soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqda inamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam aan wada dhahno inamaa bucithtu aan wada dhahno aye inamaa bucithtu aan wada dhahno inamaa bucithtu aan wada dhahno liutamima makaarima alakhlaaq waxaa lai soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan waxaynu rabnaa in dad akhlaaq la noqono maa sha allah marka waxaan soo qaadanaynaa sheeko la magabaxday wanaagu ma dayacmo wanaag haddaad samayso lama ilaawo qofka wanaagga u samaysay ma ilaawayo ilaahayna ilaahayna subxaana wa tacaala ma ilaawo waaba waxaa jiri jiray nin boqora ka boqorka waxaa la dhihi jiray sulaymaan baa la dhihi jiray wuxuu lahaa markaa gabar yar buu dhalay oo maasha allah fariid ah oo aad iyo aad maaragtay u akhlaaq badan gabadhi marka iyadoo marka balakoonka guriga ku cayaaraysa wasiirkii boqorkii iyo wasiiradiisiina waxay ka sheekaysanayaan guriga daaradiisa ayay hal mar waxay maqleen oohin iyo qaylo waa soo ordeen markaase waxay arkeen gabadhii amiira ee boqorku dhalay oo ooyeysa iyo macalimadeedii oo haysa markaase waa maxaa dhacay waxay tihi amiira waxay aragtay bisad yar ee lahayd bisad yar bisadeedii oo geed ka soo dhacaysa marka orod bay waxay kaga soo degtay jaranjarada marka maaqa inay dhacday isla marka dhakhtar baa loo yeeray waxaa la arkay inay lug ka jabtay amiira lug dhan baa la duubay oo maaragtay markay jabtay aabaheed aad uga murugooday dabcan aabuhu aad buu u jecel yahay gabadhiisa macalimadeedu marka waxay ahayd macalimad aad u fiican gabareed bay haysata adoona oo la dhaho asmaa macalimaddii maxay samaysay marka maxay soo kaxaysatay maalima ma ka mida gabadheedii waxay maaragtay amiira u keentay amiira iyo asmaa waxay noqdeen gabdha saaxiiba ah asmaa waxay gabadh naxariis badan saaxiibteed amiira mar walba caawinaysaa maadaama ay jaban tahay biyo u keenaysaa amiira waa jeclaatay asmaa bay jeclaatay aabbeeda waxay ku tiri boqorkii waxay ku tiri aabe asmaa ii ogolo inay ila joogto guriga igula noolaato isagoo marka diidan xoogaagu waa iska yeelay waa yahay buu yidhi maadaama gabadhiisii ha markii dambe amiira maadaama ay aragtay asmaa inay aad u akhlaaq badan tahay waxay ku tiri aabe amiira waxaan asmaa waxaan rabaa inaad gelisid iskuulka qaaliga iyo dadka caruurta boqorada aabe de lacagtaas kama bixi karto may aabadu inaad ka bixiso soo ma aragtid waayo waxay u naxariisanaysa gabadha aqoonta ah aabe waa yahay buu ka bixina wacaawina soo ma aragtaan kabacdi saasi saaxiiba ku ahaayeen maalin maalmaa ka mid a ayaa boqorkii lasoo weeraray marka wuxuu ka baqay marka gabadhiisii laga qaato marka wax asmaaba ku daraya hooyada wuxuu yihi xaafadiina aada inta hawsha dhammaanayso asmaa maxay samaysa marka maanta guriga yaa ugu yimi amiira u timi soo maaha
inay soo dhawayso inay caawiso inay garab siiso habeenkii oo dhan way ilaalinaysaa ma seexanayso waa asmaa habeenay ilaalinaysa amni wax gaaraan ku dhacaan way wanaagga u samaysay og tahay inay iskool qaaliyaysay geysay inay gurigeedii geysay soo maha inta iyadana u samaynaysa hadhow marka arrintii kala dhamaatay ayay guriga kusoo noqdeen amiira abeed bay uga sheekaysay sida wanaagsan oo fiican ay kusoo dhawaysay asmaa markaas yidhi waa runtaa wanaag markaa u samaysay sida iyadana maxay kuu samaysay wanaag halkan maxaan ka fahmaynaa sheekadaas in wanaag iyo khayr maaragtay aan la wada sameeyo dadkaas quduubaya ya kusugna قصة محكا فائدة إن أيضا لا تقول في جوجا مارت وحديعي كذا عروض كله كلنا كل واحد ما دعي كذا حكم إذا ففتي قاعد عليه حكم دعوان كره وفعلا كان عليه حكم دعوان كره سوساس ما واحد يسمح كل جدي وناسبه ما يفهم وأنا أقول حريستي وإن هذا الدريسين أقول كلا هذا هاي وإن هذا الكل بهين وإن هذا أقول كلنا سمعت كلام يعني وحنا نكرر سيدا الميرو أكله إن مرة بعدها هو يدعو هو وحيسيس وحاسيسه أنا جنا إيه وحاسيس يدنا سي وحمارة توقع أنا إنقط سكول كأني إنجيسه أنت أنا يسيسي سدرت أنا أكون سحره جدري أنا أكون سحره سمعت وأيوه قف كان هو ينادي هذا أذين بيركوا عام سمعت لكن هذيك كلام بود دريمة يا هذا بقول كذي بيجرتين ما هي خصنا يا سمعت marka amiiro kale aan noqono oo guriga dadka ku wada nool oo dhan aan noqono kuwa isjecel oo aan isdilin hadal xun isdihin oo aan iscaayin sama ya ha محلنا حفلة سمك ما شاء الله لغة تريد مسكعة كراكتر ما شاء الله أنت سمعها وحكرا سوق هذا لنا مركب قصة كله يدونا ديال عجيبة سوق هذا لنا وكوس أبسن إن خيركم إنوسن وما رك تقفك خير سمعيات إنوس واي وهذا واحد جري ويلقاس أرضي بوها magaaladu deganaa intuu ka tago magaalo kale wuxuu ka yahay arday ka yahay oo waxbarasho u aaday nin sheekha maaragtay ayuu wuxuu ka bartaa cilmiga marka waxa kasbiilka ka soo daahay biilka ka soo daahay aad u gaajooday marka kabacdi wuxuu fadhiisan kari waayey fadhin kari waayey maaragtay meeshii darsigii uu kacay marka gaajo ma la fadhin karaa uu kacay marka wuxuu aaday xagee aaday inuu burcunto iyo meelahaas ka helo waxaa dhacday marka nin luqluuq soo gala markaasuu albaab furan arkay albaabkii furnaa markuu arkay wuxuu arkay cunto oo fiican oo diyaarsan buu arkay muxuu arkay cunto fiican oo arkay markaasuu gacanta la aaday cuntadii soo qabso ku iibsiyo
markuu hal xabo ka soo qaatay ayuu wuxuu xasuustay oo halka maxaa u joogtaa hadda inaad wax baratid cilmi inaad barato wuxuu kula xasuustay qofka dembiga sameeya inuusan cilmi baran karin qofka waxun sameeya inuusan quraan baran karin inuusan diinta baran karin ilan dembiga iyo cilmiga ma is qaadan karaan mid uun baabosa galay ama dembiga adkan ama cilmiga kasoo hadda xaaraan haddaa cuntid afka xaaraan ku cuntay see qur-aanka ugu akri ilan cuntada miyaa loo ogol yahay wallahi waa iska dhigay isagoo aad u gaajaysan buutu cuntada iska dhigay noqday wuxuu ku noqday darsigu ku noqday isagoo yidhi haddaad xaaraan cunto maxaa baranaysa soo ma waxa dhacday marka waxa idagoo fadhiya islaam baa timi islaamtii marka sheekay la hadasha wiilka marka wiil weyn buu ahaa yani oo qaangaaro weyn buu ahaa ma fahanteen oo jaamacad gaaro weyn ayuu ahaa marka islaantii sheekhi mid waxay u sheegtay wuxuu yidhi waxay ku tiri waxaan hayaa gabar inan ah gabadhaas aabbaheeda wuxuu uga dhintay lacag badan uga dhintay waxaan u baahanahay wiil wanaagsan oo khayr badan inaan siiyo u guuriyo aabbaheeda igala dardaaramay waayo aabbaheed wuxuu uga tegey lacag badan uga tegey sheekh baan ii yeeri wuxuu yidhi guur diyaar moota kaasuu yidhi sheekh maxaa igu cayaaraysaa waxa cunan la ahay gaanja bahaysaba waxa cunan la ahay ma miyaa dheer maxaan ku guursadaa ka waxaa ka bax baa la yidhi gabadhan islaantan waxay haysaa gabar inan ah oo aabbaheed lacag badan uga tegey wiil khayr badan besaa loo baahan yahay okay diyaar baa hadhowdii markii meeshii la tegay oo loo meherin lahaa oo la siin lahaa buu arkay cuntadii oo lasoo dhigay markaasuu ninkii iska ooyey maxaa la yidhi miyaan ku khasnay maxaa loo maayi buu yidhi hadday anoo gaajaysan baa cuntada ilahay darti uga tegay markaasuu iyadoo xalaala ilahay i siiyey hadday hadduu cuni lahaa xaaraanta ma ahayd laakiin hadda maxay u tahay xaraam halkaas sheekadaas waxaan ka faa'iidaysaa wax xun haddaa ka tagto ilahay muxuu kugu bedelaa wax fiican soo artan horta haddaa wax xun ka tagtid ilahay wax fiican buu kugu bedelaa ninkaas inuu xaraam inuu ka tegay ilahay wuxuu ugu bedelay inuu soo xalaala siiyo marka waa la sugaa hadduu degdeg ilaa iska cun lahaa hadda ma helen booska fursaddaas ma helen jaaniskaas muusan helen soo ma taasna waxay ka mid tahay sheekooyinka aadka u xiisaha badan oo aan ka faa'iidayno barnaamijkeena waxaan kaloo barnaamijkeena aan ka faa'iidaynaa isagana sidoo kale waaba waxaa jiri jiray waxa dhacday waaba waxa dhacay بيت المقدس وفلسطين مساجد القدس المسلمين waxay leeyihiin saddex masaajid oo waaweyn soo ma masaajidka kacbada masaajidka nebiga iyo qudus marka waaba waxaa qudus soo weeraray niman gaar ah marka kaasay wax allaale waxay muslimiinta haysteen bay ka qaateen marka islaam waayeelaa jirta marka islaam waayeel ah ayaa jirtay islaantii waayeelkaad marka wiilkeeda sheekh axmed u dhahaa ayay haysatay waxay ku tiri marka axmed nimankii gaalada wax walba way qaateen waxay hal sac baa u haray marka sac oo irmaan sacan intaa inoo kaxaysid intaad inoo kaxayso sacan maaragtay beerta ku qari yaysa ina ka arag maaragtay nimanka gaalada ina ka toogi haye hooyo wuu tegey sacii buu kaxeeyey maaragtay meesha daqsinka cawskii iyo beertuu geliyey wuu ilaalinaya hadhow wuxuu maqlay sarqan arka beertii niman gaal soo galay isla markiiba sacii buu kaxeeyey meel wuxuu geliyay dhirta ku qariyay ilaahay waa dhaafiyey markuu soo baxay wuxuu arkay nin muslima oo wuxuu xambaarsay nin kaloo muslima wuxuu yahay dhaawac markaasi biyo nasiibay dhahay biyuu waayey
wuu fekeray weel bay wateen wuxuu ugu listay saci buu lisay caanii buu siiyey oo u mahad celiyey jazaaka allah khayr markaasi ninkaa mahadsan waayo ninka maxaad difaacayseen masaajidka ilaahi subxaana watacaala waxa dhacday marka hadhow guriga hooyadiisa ka walwalaysa maxaa kugu dhacay arrinta uga sheekay habeenka iyaga dee saci kaliya caanaa ka maalayeen iyo caani siiyeen ninkii dhaawacaa soo ma habeenkii iyago maysan caana maysan cabin hadhowdii markii dhibtii dhammaatay ayay waxay arkeen maalin walmaa ka mid ah laba nin oo waxay wadaan 30 neef oo lo ah 30 neef oo lo ay wadaan iyaga wadaan waa u keeneen waxay dhaheen waa ku mahadsan tihiin maalintii waxaa biyaha caanaha aa siisay hogaamiyey dhan muslimiintu ahaa markaa badbaadiso caanaha aa siisay dhaawac ahaa abaagud wuxuu kaaga dhigay inuu 30 neef ari ah marka waa jazaa ilmacruuf haddaa wax fiican samayso maxaa helaysaa hawka hadda qof caawiyso maxaa helaysaa qof adigana ku caawiya marka wanaagu fiicnaantaas waxaan kala soo qaadanaynaa in sheeko kale iyaduna aad iyo aad u macaan tani sheekada kale u gudbin qisadaynu qaadanay waxaan rabaa inaad qof walba wuxuu ka faa'iiday uu sheego sama jiro qof walba ka faa'iiday iyana ku hormaraayo u dhahay anu xasan ka faa'iiday hal shay shayga ka faa'iiday ayayna ku hormaraayo aye iyaynu okay maxaa magacayga adeer cabdullaahi maasha cabdullahi inta soo istaag adeer maasha allah cabdullaahi wuxuu inoo sheegayaa wuxuu ka faa'iiday sheekooyinkii aan xalaqadan kusoo qaadanay ما شاء الله ما شاء الله أدو ما سيها يا كلو لو درايا هاي وليش ولكم دهر وصلنا غنا أدر هاي تسيستك ما شاء الله ما شاء الله أبت مقعاه فاطمة كالي أبت ما شاء الله ما شاء الله أبت ما شاء تسيستك ما شاء الله أبت حاجة فايدة حول سلو نقالي أخلاق لك فايدة سما ما شاء عليكم السلام ما شاء الله waxaan ka faa'iiday sheekooyinka aan ka shaqeeyay in ilaahay dadka u naxariisto inaad dadka u naxariistid si ilaahay kugu naxariisto ما شاء الله ها magacaaga bilowgi kara magacayga waa maxamed xamed qadir waxaan ka faa'iiday xayawaankii inuu naxariistay adna ilaa ku naxariistay adeeryaal intaas waxaan kusoo afmeeraynaa sheekooyinkii adeere cajab asbuuc walba maalinta arbacada ayaa barnaamijka inoo jira ma garateen asbuuca dambe waxaa lagu tartamayaa oo abaalgud qaadan doona 3 qof ee ugu akhlaaqada badnaa asbuucan ayaa abaalgud qaadan doona soo ma aad ba umahadsan tihiin aad ba inay jeclahay waxaan rabaa inaad noqotaan dad akhlaaq leh inaad noqotaan dad wanaagsan inaad noqotaan baan jeclahay insha allah asbuuca dambe iyo sheekooyinkii aad ba umahadsantihiin